السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتا قالقا كسو دوادا channel كيغا عيساوي HD videos. هدي aad nagu cusub tahay fadlan channelka subscribe noo saar. haddii aad horey noola joogtayna aad baa u mahadsan tahay. maanta waxaan idin wadaa video cusub oo ah ku saabsan videogaas hees labadan maalmood iyo saddexdan maalmood aad iyo aad maaragtay ummadda ay ugu qayliyeen. heestaas oo maaragtay ay soo saareen fanaaniinta dhalinyarta ee waayaha cusub qaar ka mid ah, dhammaantood ma dhihi karayno, laakiin qaar ka mid ah oo maaragtay go'aansaday in ay ku dhiiradaan ay soo saaraan heestan nabar iyo naxdin oo lid ku ah astaanta dowladda hadda jirta oo ah nabad iyo nolol. heesta ay soo saareen dad badan ayaa maaragtay reaction ka bixiyey, dad badan ayaa maaragtay comment ka bixiyey, dad badan ayaa maaragtay si kala duwan ugu faallooday. bal insha Allah annagana waan ka faalloonaynaa waraysiyada oo Shiina la waraystayna insha Allah waan taaban doonaa. bal marka hore heestaan isla yara dhageysana wax yar. waayahay waad arkaysaan saa arkaysaanba waxaa waaye waa heestii say u dhigeen hadalka ay dhaheen nabar iyo naxdin oo lid ku ah astaanta dowladda hadda jirta nabad iyo nolol oo ay hogaamiyaan madaxweyne mudane Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre. runtii heestaan horta waxaa curiyey oo maskaxdiisa ay kasoo maaxatay waa hogaamiyaha ama guddoomiyaha kooxda waayaha cusub Master Shiina Khiyaar oo mar dhow asoo laga wareysanayay TV-ga Universal TV caalamiga ah aan arkay oo sheeganayo heesta aniga curiyey maskaxdeydana ka timid. sidaas ay la tahayna waxa waaye wuxuu u arkay heestan inay tahay mid ummadda Soomaaliyeed indhaha u kala furayso, laakiin heestu markii aad fiirisid waa mid ummadda Soomaaliyeed indhaha tirayso oo ah dowladdan aad hadda ku nasateen burburiyo oo la dagaalama, micnaha taa unbaa u dhigmataa. runtii heestan markii la soo geliyey YouTube-ka in ka yar 4 ilaa 5 saacadood gudahooda ayaa waxaa ku daawatay 22,000 ayaa daawatay heestan. 22,000 daawatay kadib waxaa batay daawashadeedii inta aanan ka helin heesta oo maaragtay waxa la yiraahdo dislike saartay. dislike-geedii batay. marka muddo 2 saacadood gudaheeda ayaa maxaa la saaray dislike dhan 63,000 oo dislike iyo wax ka badan ayaa la saaray. dislike-gaas iyo views-ka islama socdaan. waraysi oo Shiina uu kaga hadlaya arrintaas bal wax yar aan isla daawano insha Allah. waxay ku jirtay 2 saac markii aanu real time-keeda aanu fiirinaynay. waxaad daawatay heestan 22,000, waxaad isla garaysay 68,000, waxaa la garaysay 7,600. runtii waa arrin halkaan joogo. okay, waad arkaysaan soo Shiina Khiyaar sheegaya wuxuu sheegayaa in dislike-ga heestan in la gatay ama maaragtay meel laga soo gatay oo maaragtay ama dad lacag la siiyey oo sida dad indha yar oo Shiinayska iyo Hindiya iyo meelaha ayaa laga gataa suu sheegayay. haddaba waxaan rabaa in idin caddeeyo qofkii yaqaan wuu yaqaanaa aaladan social media qaasatan ee YouTube-ka waxaa jiro haddii aad video gelisid videogaas oo maaragtay ahaada mid ay dadka aysan ka helin oo dislike-giisa ay wato, haddii ay gaarto ilaa 10 ilaa 5,000 oo dislike markii ay gaarto videoga hadduu 1 milyan view marayo halka YouTube halka views-ka ay ku istaajinayaan, views damba ma helayo. dadku videoga way fiirsanayaan laakiin views-ka ma xisaabinayo, YouTube uu joojinaya. muxuu joojinaa sababtoo ah dadka kama helin. waa inay investigation sameeyaan oo baaraan oo dhan sababtay dadku ugu helin videogan maxaa waaye. haddii uu report haddana oo loogu sii daro oo videoga report lagu sameeyo oo reportigiisa uu bata, waxaa imaanaysa in hadhow markii dambe videoga sidiisaba totally ahaan la block gareeyo ama YouTube-ka laga saaro. marka Shiina wuxuusan ogeyn in YouTube-ka
ay maaragtay dabagal ku haynayaan videoyaasha lasoo geliyo oo ay fiirinayaan inta qof oo maaragtay dislike garaysay. haddii ay badato dislike ay 5,000 haddiiba xagga u dhaafto 5,000 videogan hadda suu sheegaya afkiisa ka maqlaysaan waxaa dislike garaysay 63,000 ilaa iyo xogaa muddo saacada yar gudahooda. marka haddii uu dislike ama maaragtay ma ka helin ay gaarto 5,000 iyo wixii ka sarreeyaba haddii ay gaarto youtube-ka viewskii aad helaysay halka ay ku istaagaan ma la xisaabinayo. ilaahuma intaasoo milyan adduunka caalamka videogaas daawato ma ku tusay qofka oo videogaas soo geliyey ayaa markuu gudaha galo youtube-ka gudaha u galo oo youtube studio-ga uu galo videogaas oo dib u fiiriya ayaa wuxuu arkayaa intuu viewska gaarsan yahay. laakiinse dadka kale wuxuu tusayaa oo kaliya inta uu gaarsan yahay oo ah halkii uu ku istaagay markii dislike uu 5,000 ka batay. haddii dislike mar intuu 5,000 gaarin uu videoga 1 milyan maray tusaale ahaan ama uu 1,000 maray ama 100 uu marayay halka ayuu ku istaagaya. dislikegaas iyo waxaa isla soconaya viewska haddii uu meesha ku istaago dadkina way sii fiirsanayaan dislike bay sii saarayaan ilaan 5,000 ka batayba viewgiisna halka ayuu ku sii istaagaya. marka waxa waaye youtube-ka intaa wuu ku jiraya investigation bay sameynayaan oo waxay leeyihiin waayo maxay u dhacday intaan qof muxuu videogan maxay intaan qof ay dislike u saareen. dad baa jira marka report ay sameynayaan waxay dhahaan waa hateful waxa waaye waa diinu ka soo horjeeda ama intaasoo kunoo qof uu ka soo horjeedaa waxyaabaha ayo kale waa waxyaabaha aysan ogoleen sharciga youtube-ka in videogaas maarta lasoo dhiga baraha bulshada sida youtube-ka oo kale ma ogola inay faafiyaan waxyaabo ummad ama dad maaragtay ka badan 10,000 dhibaato gaarsiinaya. marka haddii ayba badato dislike ay dadkina dhahaan maxaa la dhahay waa videogan waa hateful ama waa wax dadka ka soo horjeedo sida ayuu ku istaagayaa. midda kale youtube heesta markaad fiirisid Shiine Akhyaar wuxuu leeyahay waxaan ka hadlaynaa maxaa dhahay xurriyatul qowl Soomaalidu horta waxa waaye laba wax bas xun bay u fahmeen. waxaa la yiraahdaa democratic ama maaragtay federaalnimada iyo maxaa la dhahayay freedom of speech. Soomaalidu si weyn oo qalad bay u qaateen. horta waxa waaye freedom of speech wixii rabto waad ku hadli karaysaa waa sax oo qof xor baa tahay laakiin dad ha dhaawicin baa lagu dhahay soo maahan. hadda Shiino kale xurriyatul qowl baan u hadlayo leeyahay heestiisana cay baa ku jirto waxa waaye dad buu caayanayo oo ma aragtay kulli infisray heesta waad fahmaysaan macnaheeda inuu dad caaynayo ma aragtay dad qaas ah oo caynaya ayaa ma aragtay heesta ku jirto. mid kale ninka markuu fanaan yahay waa astaan qaran oo kale waxa waaye fanaan Soomaaliyeed ummadoo dhan ay ma aragtay ay ku tiirsan tahay. laakiin fanaanku hadduu siyaasi isu bedelo oo siyaasad ahaan uu soo galo runtii aad bay u xun tahay. waayaha cusubna taabaan ku cambaaraynaynaa marka ugu horeysayna maaha waayaha cusub oo ma aragtay ay sidaan oo kale sameeyaan. waa xasuusataan waqtigii Cabdi Ilay uu haastay kililka Soomaali Ogaadeniya oo ma aragtay ummadii la laynayay ma aragtay aad dadka loo dili jiray waqtiga iyagoo ma aragtay qutulyoonkooda ka raadsanaya ayay jigjiga tageen ay u heeseen dowladda iyada oo shacabka xasuuqaysay ay u heeseen. marka waxaan bilaabmaya ma first time u ahaan oo ma aragtay waayaha cusub ayagoo hungurigooda fiirinaya ay dowlad ku dhagaan. marka waa waxay hore u soo sameeyeen.